بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحكبرنا ويدينته what is on the job training OJT. On job training ومد كمد حبابك لو توبرو شقالها توبركنا waxa uu ka dhacaa isla goobta shaqada waana qaab loogu talagalay inay shaqaalaha ku bartaan aqoon iyo xirfad cusub. Haddaba OJT ama on job training waxa uu u suurtageliyaa shaqaalaha inay helaan aqoon iyo khibrad ku aadan shaqada ay markaas si toos ah gacanta uga qabanayaan. Shaqaalaha la tababarayo markaas waxa haga ama waxbara qof khibrad u leh shaqadaas. Si aan u fahanno qeexidaas aan isla aragno tusaalahan aan dhahno shirkad ayaa shaqaalaysiisay Fatima oo ah dadka hormariya software-rada. Fatima waxa ay leedahay aqoon bilow ah oo la xiriirta luqadda lagu hormariyo software-rada. balse ma lahan aqoon la xiriirta habraaca ay shirkadan cusub ay u shaqeynayso adeegsato marka la hormarinayo software-rada. Haddaba si loo kabo sarana loogu qaado aqoonta Fatima, shirkadda waxa ay Maxamed u xil saartay inuu macallin ama tababar u sameeyo Fatima. Inta muddada tababarka uu socdo, Fatima waxa ay la shaqeynaysaa Maxamed oo baraya habraaca saxda ah ee shirkadan adeegsato marka la hormarinayo software-rada. Waxa ayna wax ka baranaysaa mashaariicda kala duwan ee uu Maxamed qabanayo. Haddaba Maxamed marka uu arko inay Fatima khibrad yeelatay ayuu si tartiib ah ugu xil saarayaa Fatima inay qabato shaqooyin culus oo la xiriirta horumarinta software-rada. Waxa uuna ka siinayaa jawaab celin hadba sida ay wax u qabato iyo hagidda ay markaas u baahan tahay. Inta tababarka uu socdo, helidda khibrad ama xirfad waxaa Fatima u sii dheer inay wax badan ka barato qaabka ay shirkadan u qabato shaqada horumarinta software-rada. Gunaanad on job training ama OJT waa hab wax ku ool ah oo ay shaqaalaha ku helaan aqoon iyo xirfad cusub oo u suurtagelinaysa inay shaqadooda u gutaan si heer sare ah. Xog dheeraada oo ku saabsan mentoring and coaching fadlan ka dhigayso lifaaqa hoose oo aan hadda kor uga soo hadalnay. Mahadsanidin waa inoo markale haddii Rabbi idmo.